السلام عليكم كروين أكاديمي والاليال كسو دواذا مبدأ شناد فيديو ugu horeeya mabda'an waa mabda aad iyo aad muhiim u ah waa qaababka qiimaha price patterns waa mabda aad u jeclahay waxaa hubaa haddii aad mabaadi'dan kulligood si fiican iskula isticmaashid aad la kaashatid psychologyga casharka psychologyga suurtagalnimada risk management fiican aad samaysid inaad noqonaysid ganacsade buuxa oo si joogto ah bil walba ka faa'iidaysto suuqan taas waa mida huba marka taladeed waxa waaye casharadan si fiican u fahan waliba casharkan waa cashar muhiim ah muhiim mabda'ana waa mabda' muhiim ah waa mabda'yada mid ka mid ah kan iyo mabda'an qaababka qiimaha iyo mabda'a lixada ugu dambeeya waa kuwa ugu jeclahay waaye marka insha Allah u guda galno furo muhiim ah had iyo jeer raadso jebin iyo dib u tijaabin marka tan waa muxuu ahaa qiimaha ugu horeeya qaab qiimeedka ugu horeeyo laakiin muxuu ahaa waa muhiim inaad mid ka mid raadsatid shantan qaab qiimood qaababka qiimaha waa qaabab gaar ah oo ay abuurtay dhaqdhaqaaqa qiimaha waqti kadib marka dhaqdhaqaaqan qiimaha xageeba ka imaada suuqa miska dhaqdhaqaaqa maya waa mass psychology waxa waaye waa cilmu nafsi waa dadka iyo ficiladooda dadkan muxuu ahaa iibinayo ama iibsanayo kana ganacsanayo suuqa dadka qaarkood waxay arkayaan suuqa meel joog waxay moodayaan suuqa inuu meel hoos joogo way iibsanayaan markaas kuwa kalena way soo iibinayaan markaas si qaabka suuqa saas u dhaqaaqa marna kor u aada marna hoos marna kor marna hoos marka saas uu ugu socdo yaa wuxuu sameynayaa qaabab la arki karo marar badan soo laalaabtaan waxay sameyn doonaana la garan karo marka waxaas waa waxa isku dayn inaan ka faa'iidaysano waxaa jira shan qaab qiimeed asaasi ah oo ganacsadaha khabiirka u raadsado waa kuwe waa midka ugu horeeya midka loo yaqaan jibin iyo dib u tijaabin break and retest laba laab kore iyo laba laab hoose double tops and double bottoms kuwa marar badan soo laabto madax iyo garbo heads and shoulders kuwa ayakana mararka qaarkood la helo marar badan ma soo laabtaan kanaal kor u kac ama kanaal hoos u dhaca waa ascending and descending channels aad iyo aad u jecla midkan iyo rising ama falling wedges kana si fiican waa jeclahay qaababkan qiimaha ayaa dib isu soo celiyo sanadba sanadkiisa maalinba maalinteeda saacadba saacadeeda waana sii wadi doonaan inay sidaas sameeyaan oo dib usoo laabtaan marar badan haddii aad awooddo inaad aqoonsatid qaababkan waxay calaamad u tahay meel wanaagsan oo aad suuqa ka geli kartid qaabab kale ayaa jiraan laakiin qaababkana ayaa asaasi u ah qaababka qiimaha suuqa waxaa jiraan kuwo kale like triangles iyo flags iyo waxaas laakiin kuwaana ka fiican uguna jeclahay inaan isticmaalno marka aan bilowno midka ugu horeeya jebin iyo dib u tijaabin break and retest qaabka koobaad jebin iyo dib u tijaabin ayaa noqon karo qaabka ugu muhiimsan ee qaababka qiimaha suuqa jebintu waxay tilmaamaysaa jebitaanka sagxad ama saqaf dib u tijaabinta ayaa ah qiimaha suuqa oo dib u tijaabinayo sagxadda ama saqafka la jebiyey kuwaas oo isku bedelayo saqaf ama sagxad siday u kala horeeyaan qaabkan koobaad ayaa ku samaysmi karo xariiqamo kala duwan kuwaasoo kala noqon karo sagxad ama saqaf toosan horizontal support and resistance lines sagxad ama saqaf qalloocan marka trend lines sagxad ama saqaf dhaqdhaqaaqo EMAs saddexda kore ama ayagoo dhan isku imaado ayagoo hal mar isku wada imaado tan ayaa ugu awooda badan marka taas waa qaabka ugu horeeya qaabka labaad laba laab kore iyo laba laab hoose double tops and double bottoms qaabka labaad qaabkan ayaa inta badan laba laab kore iyo laba laab hoose ayaa ah qaabka ugu badan ee dib u laabashada qiimaha suuqa lagu tilmaamo ee falanqaynta farsamada waa qaab loo yaqaano muxuu ahaa reversal pattern waa dib u laabasho tilmaamaa laba laab kore ayaa sameysma markuu qiimaha suuqa isku qiimo ka sameeyo labo sare u boodid marka laba sare u boodid hadaa gadaal u laaban waa arki doontaa sare u boodid waxa ka wado waa kuwan laba sare u boodid sidaan camal double bottoms dhehe double tops ku tusinaya laba laab hoosena waa kasoo horjeeda ayaa sameysma markuu qiimaha suuqa isku qiimo ka sameeyo labo hoos u dhac marka qiimaha uu ka noqdo isla heer laba jeer waxay noqon kartaa tilmaam in suuqaasi
uu aqoonsaday heerkan inuu yahay meel adag oo sagxad ama saqaf ah, strong level of support and resistance. marka waa meel fiican aan ka socono. waa kuwana sawir markuu suuqa sameeyo laba buur sidan camal waa laba laab kore, waa kaasa. kana waa laba laab hoose, waa kana ka socono. midka saddexaad madax iyo garab. qaabka saddexaad waa qaab ka mid ah qaababka qiimaha badan ee FX-ka. qaabkan ayaa leh 3 sareeyaal oo kan ugu dheer dhexda ku jiro. awood la'aanta sareeyaha saddexaad inay sameyso meel ka sareyso sareeyaha labaad ayaa waxay muujinaysaa daciifnimada isbedelka kore ee hadda socda. madaxa iyo garbaha dhaca kadib isbedel hoos u dhac waxaa loogu yeeraa madax iyo garbo rogan inverse. marka waa wuxuu ahaa way kasoo horjeedaan, waa inverse heads and shoulders. kuwani waa waxay kasoo horjeedaan horjeedo sax ah oo qaabka caadiga. kuwani waa soo horjeedo sax ah oo qaabka caadiga. okay caadi uga soo horjeedaan waa opposite. marka waa kuwana sawiro garab madax iyo garab kale. qoortana waa tana meeshaan suuqa dib ugu soo laabtaa marar badan, markaas la raaci kartaa. waa kana waa idin tusin doonaa video labaad si fiican ku tusin doonaa insha Allah. waa kana muxuu mid ka rogan waa garabka bidixda, madaxa iyo garabka midigta. waa kana asoo wax yar qalloocan, waa heads and shoulders, inverse heads and shoulders. afar qaab qiimeedka afaraad waa qaab qiimeed kanaal kor u kac ama hoos u dhac, ascending descending channels. waa marar badan soo laabtaa. qaabkan ayaa leh labo jiheeyaal, mid hoose iyo mid kore. qiimaha suuqana labadan jiheeye buu ku laabtaa markaasuu soo jibiyaa. qaab qiimeedkan ayaa tilmaamo suuqa inuu dib u laabasho sameyn doono haddii kanaalka la jabiyo, jihadiisana isbedeli doonto. marar badan ayuu soo laabtaa waqtiyada kala duwan iyo lacago kala duwan waa laga heli karaa. marka ascending descending channels marar badan soo laabtaa, weliba waqtiyada gaagaaban hadaa fiiriso sida saacadlaha iyo 4 saacadlaha. shakhsi ahaan waxaa aad uga raadsadaa waqtiyada gaagaaban 4 saacadlaha iyo saacadlaha, waxayna ka mid tahay qorshahayga ganacsi ayay ka mid tahay. waa kana kanaal kor u kaca. xariiqintan madooga waa qiimaha suuqa. marka suuqa tanna waa jiheeyaha hoose iyo jiheeyaha sare. suuqa ayuu wuxuu u dhaxeynayaa labadan jiheeye ugu yaraan 2 ilaa 3 jeer inuu taataabto. ay markaasuu soo jabinayaa jiheeyahan, wuu jabinayaa sagxada iyo saqafkuu jabinayaa, dib u tijaabin ku sameynaya, waa la raacaysaa hoos oo la raacaysaa. marar badan soo laabta aad iyo aad u jeclahay qaab qiimeedkan. midkaana waa mid hoos u dhaca. waa kana kasa muu jabinayaa, dib u soo laabanayaa. kana inta kor uga raacaysaa. marka lagu xujibiyay sagxad iyo saqaf kor uga la sii raaci kartaa. marka qaab qiimeedkan aad iyo aad u jeclahay. waxaa muhiim ah in marar badan uusan exactly isku meel aysan kugu aadi karin. kana laga yaabaa inuu wax yar ka baxsan yahay, taas caadi waaye. waxaa muhiim ah inaad arki kartid suuqa inuu ku jiro kanaal, inuu ku dhex jiro. midka ugu dambeeya rising ama falling wedge. qaabka shanaad waa qaab ka mid ah qaababka qiimaha badan ee FX-ka. qaabkan ayaa leh labo jiheeye, sidoo kale mid hoose iyo mid kore. qiimaha suuqa labadan jiheeye buu ku laalaabtaa. xagasha ama angalka jiheeyaha kore hoos bay u soo dhacdaa. waa markuu suuqa kor u socdo. waa idin tusin doonaa sawirka, idinkan tusin doonaa rising wedge markuu sameynayo. jiheeyaha kore angalkiisa hoos u soo dhacdo ama kor bay u kacdaa falling wedge markuu yahay. sawirada soo socda ku arki doontaa. qaab qiimeedkan ayaa tilmaamo suuqa inuu dib u laabasho sameyn doono haddii suuqa wedge-ka uu soo jabsado, jihadiisana ay isbedeli doonto. marar badan ayuu soo laabtaa waqtiyo kala duwan iyo suuqyo kala duwan waa laga heli karaa. shakhsi ahaanna tan laftirkeeda waxay ku jirtaa qorshahayga ganacsi. aad iyo aad u isticmaala, aad iyo aadna waa u jeclahay. waa kana rising wedge. saa ujeedid jiheeyahan hoose iyo kan kore waa idin sheegay wuu jabin karaa. kasbaasaan u sameeyay. waxaa rabaa inaan idin tusiyo suuqa inuu ka baxsanaan karo levelka, laakiin ay muhiim tahay inaad arki kartid rising wedge inuu ku jiro. waa kana marka xagasha linekan kore ayaa hoos u soo laabato.
qiimaha qiimahana weel yar wuu isku soo dhawaadaa markaasuu soo jabsadaa dib muxuu ahaa jebin iyo dib u tijaabinu sameynaya waa qaabkii ugu horeeya markaasaa la raacaysaa waa kana waa rising wedge kan kalena waa bilcagsi uu kasoo horjeedaa waa kana falling wedge marka tanna xagashaan ayaa kor u soo kacdo waa kana wuu isku soo dhawaanayaa meesha hoose waxay u ekaanaysaa triangle wuu soo jabsanaya dib u tijaabinaya wuu soo soconaya xaggaana ugu fiican meelaha kala raaci kartid kora usii raacaysaa suuqa meelahana ka geli kartaa laakiin mar kale waxaa rabaa inaan idin xasuusiyo waxaan istiraatiijiyad ma ahan istiraatiijiyada hoosay ku taalaa shuruucdooda wax walba suuqa saa u geli lahayd istiraatiijiyasha u daaya tan intaa bartaan ha la ordina ha isku dayin inaad rising falling wedges 5 daqiiqlaha ka raadsataan ama saacadlaha waxaa muhiim inaad istiraatiijiyada isticmaashaan videoga ugu horeeya intaasa kusoo gabagabaynayna insha allah videoga labaad waa idin tusinayna tusaalooyin idinka tusinayna insha allah. Assalaamu calaykum.